بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو قدوميها أغل كسرة قدومي كحانك بارلبانك مدحوين سعيد عبد الله داني مدحوين كحان كيسا مدحوين ياشا مامل قبلديدا وزير هذا حبناها بارلمانكا دمان دبلوماسيين تكسو قيب شيء حفلة غالية سيدا سوكا لوفدقا كيميد كينيا دمان كسو قيب قلياشا مدليان يمروين كما تقايا صحافة iyo فنانينته waxaan ku salaamaa salaanta islaamka salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. salaan kadib fursad weyn ay tahay caawa inaan ka soo qayb galo xafladan aadka loo soo agaasimay. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo guddiga qaban qaabada sida wanaagsan u soo abaabulay inaan uga mahad celiyo marka hore xafladan qiimiga leh. sidaas oo kale waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadka reer Puntland runtii noo muujiyay maamuus iyo qiimeyn iyo soo dhaweyn aad iyo aad u wanaagsan oo ku mahadsantiin Allaah adinkana. intaas kadib waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo walaalkay Saciid Maxamed Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo dhammaan maamulka cusub oo la soo doortay. waxaan leeyahay hambaliyo doorashada la idin doortay xilka la idin dhiibana Allaah idin la qabto. intaas markii aan ka gudbo saaxiibkay madaxweynaha waa ila ballayay marka inaan hambaliyo ku istaago haddana waxaan u maleynayaa ballanta dadka in la wada gaarsiiyo waxaan arkayaa dad badan oo dardaaran dhiibaya haddii ma aqaan aniga dardaarankaas inuu kaliga qabo doono iyo marka waxaan rabaa madaxweynaha dardaarankiisa inaan tixgeliyo fariin la soo dhiibana aan dhiibo madaxweyne inta soo ogosha Sooma Allah ybarak fiik iga raali ahaada maanta markaan soo socday anoo meeshii dad badan ay isugu tagay maxaa sheegi doontaan oo isle maqaayadan galo waxaa ugu tagay oda biiqe iyo islaantii la dhihi jiray ya Arweelo ayagoo shaah cabaaya oo kaftamaaya Arweelo kafeeya waxaa u shuban maxaa la dhihi jiray kubadshino odaguna waxaa u shuban shaah cadaysa oo maxaa la dhihi jiray danguus ma la dhihi jiray shaayga shaay caana leh. marka waxaan ku yiri war haye bal warrama waxay yiraahdeen waa fiican halkaan aan joognaa waxaan rabnaa dalkiina u laabano bariyahan halkaan aan joognay. waxaan ku yiraahdaa dalkii aan u socdaa waxay dhahan fariin aan ku dhiibaynaa. waxay ku yiraahdeen fariinta meesha u socoto garaw leeraagay oo Soomaalida u sheeg shirkooda iyo naqanin shir la isugu yimaado lagu kala tago waxa ka soo baxaano talaha ka timaado waxaan ku yiraahday suura gal weyso Soomaaliya waa dhib badan tahay waxay yiraahdaan madaxdu intay qol gasho oo ku shirto oo shaah ku cabto ayagoo qoslaaya ka soo baxaano waxay isdhahanayeen sheegin waa ma santiin. Assalaamu alaykum.